بسم الله الرحمن الرحيم وأحمد فارح علي ذاتا وروما يدلك طليانيga waa Febraayo 29 waxa la yiri rag iyo riyaa musayba reerkoodii gabe sidaa darteed si aan Soomaali u gabin waxaan halkan ka soo jeedinayaa laba hadal oo dhammaan dadka af Soomaaliga ku hadla kan hore loogu talagalay kan labaadna Maxamed Siyaad Barre oo 20 sano Soomaaliya madaxweyne ka ahaa isagoo gada joogana ay igu dambeysay waa halkii Cabdullaahi Qarsiye waa inaynu runta qarxinaa Soomaali wixii aan oran lahaa horaan u iri sarbeeb iyo af qayxanba waan ugu sheegay dul iyo hoosba waan ugu dhigay gurac iyo toosbana waan ugu tabiyey qof markii ay joogto Soomaalidu waxa ku habboon waa in wax ana malahayga ma jiro hayeeshee waxa habboon inaad taqaani waa arrin inaad ku dhaqaaqdo oo ku dhaqantaana waa arrin labaad Soomaalidu siday u badan tahay ciidamo xikmad iyo murti badna waana tilmaan ay inoo galeen dhammaan shisheeyaha intooda dhaqankeena u kuurgalay wax badan baa lagu celceliyey inaynu nahay dad tiro yar oo af qura ku hadla oo diin qura rumaysan wada qaraabo ah isku sinji ah inta keliyihiina mideeyo su-aasha ah haddii ay arrintu caynkaas tahay dalkuna uusan ku yarayn maxay isu xasuuqayaan su-aashaas intaan jawaab u doonay ayaan soo qaban waayey rag kale oo waxgarannimo lagu majeerto waan weydiiyey iyaguna haba yaraatee waxba igu kordhin waaye waxaan rogrogaba waxaan ka barin waayey jawaabna aan ka dhigay aqoon xumo haddana waan ka daayey waxaan idhi waa hoggaan xumo haddana waan ka daayey waxaan idhi maya waa dadka inta isku danta ah oo aan is ogeyn haddana waan ka daayey waxaan idhi waa kibirka iyo qabka ah anaa reer hebel ah gob ah oo inta kale talada dadka iyo dalka kaga mudan iyadana waan ka daayey waxaan idhi waa intaas oo dhan oo ishuwan waxa guuldarrada Soomaali ugu wacan oo tii ugu horreysay waa aqoon darrada ay ugu weyn tahay inta ay jawaabtaas ka habboon cid kale soo bandhigi doonto taydaas baan isaga dhaganaan haddana waxaan u gudbayaa erayadii aan u soo jeedin lahaa Soomaalida ay casharadan u socoto dhagaysana doonta maanta oo aan casharadan duubayaa waa bishii Febraayo hal sano iyo maalmo ayaa laga joogaa markii xamar laga soo saaray ninkii muddada dheer dalkeena ka soo talinayay ee la oran jiray Generaal Maxamed Siyaad Barre hal sano ayaa dagaalkii xamar laga joogaa sanadkaas oo aan laba isku diidi karin inuu taariikhda ku geli doono sanadkii burburka isxasuuqa sokeeye iyo dhiig baxa sabab la'aaneed ee ummadda Soomaaliyeed dad aan xisaabtan lahayn waa dunyadoo kale waa humbani aan xoolaha dhaamine maxaan rag allow ka faa'iidnay dagaalkii hubaysnaa ee 1978 ilaa 1990 soconayay ee ugu dambaystii kursigii madaxtooyada lagaga tuuray Maxamed Siyaad Barre waan ogahay oo in doora ayaan jeclayn su-aashaas inaan isweydiino oo rabi lahaa inaan iska indhatirro hal sano oo idil oo taariikhdeena ka mid ah kooxaha sidaasa waxaa ka diimoon inay jiraan dad aan dhacdooyinka taariikhda ka ilduufin oo aaminsan ha xumaato hase samaatee in ummad waliba waxay nafteeda ku fasho loo diiwaan geliyo si berri ka maalin ay da'ahooda dambe wax ugu qaataan waa tahay hal sano ayaa laga joogaa soo gabagabayntii taliskii la eeray ee Maxamed Siyaad Barre hogaaminayay soo gabagabayntaas oo dhiig badan lagu xaqiijiyey dhalinyaro boqolaalihina u geeriyootay hase yeeshee aan su-aashii hore ku soo celiyey ma ka raysannay mase waa nooga dareen nimankii inta caasimadda u soo dhaqaaqay xukunkiisii siloonaa xididada u siibay jawaabta oo toos ah inaad aniga iga sugto oo iyadoo diyaara aan ku dhiibo waxaa ila dhaantaa inaan wada doonno oo aynu markaa mid qurax ku heshiino horta hore mabda ahaan ummadda Soomaalidu waxay isku raacsan tahay amaba isku raacday hadda ka hor boqolkii nin ee Maxamed Siyaad Barre horseedka u ahaa ee 20 sano ka badan Soomaaliya ku amar ku taaglinayay minba inay u leekaataba inay shacbiga ugu eedeysan yihiin musuqmaasuq cadaalad darro hurin dagaalo sokeeye kutumashada xuquuqda aadanaha dhac iyo boob hanti dadweyne iyo xumaan kasta oo ruuxa maankiisa ku soo dhici karta ummaddu markay intaa dareentay waxay garaysatay
inay xaq iyo lama huraan tahay maxamed siyaad barre iyo kooxdiisii dhiigga dadka quudanaysay in talada laga wareejiyo si qaskii siyaasadeed iyo burburkii dhaqaale ee ay dalka bareen looga badbaadiyo. hadal iyo hees tix iyo tiraaba dareenka dadweynaha waa lagu gudbiyey, ha yeeshee dhaguhu ka furaystay isagoo isku halaynayay hubkii tirada badnaa ee xeryaha ciidamada lasoo dhoobay, hubkaas oo asal ahaan loogu talagalay ilaalinta sohdimaha qaranka Soomaaliyeed si uu kolkii dambe u rogay wax shacbiga lagu caburiyo, lagu kibirsabiyo oo lagu adoonsado. markii hadal iyo waana lagala quustay oo uu kursigii maxamed siyaad barre ka dhigay wax uu dhaxlay amaba uu leeyahay, dadkii oo idilna uula macaamilay sidii dhowr tiroo ari ah oo xero ugu odan, ayay bilaabatay in la jabhadeeyo oo xoog lagu dayo. waa gar oo gadoodku waa bannaan yahay kolkii cadaadisku baaro oo talis naxariis darani uu shacbiga dusha ka fuulo, ra'yiga qofka kalena la caburiyo sidii ka dhacday Soomaaliyadii maxamed siyaad barre lagu ciqaabay. waxay ahayd in la isweydiiyo maxaa la yeelaa, sidee baase ninkan iyo kooxdiisa hungurigu indhaha ka riday la isaga dulqaadaa. qaabka halgankaasi sidee buu noqon karaa? ma halgan nabadgeliyo oo af iyo qoraal ku egbaa, mase waa halgan hubaysan oo ciidamada taliska inta lagu jabiyo lagu afgembiyaa? halganku noocii uu doona ha ahaadee dadka lagu fulinayaa ma bulshada qayb yar oo ka tirsan baa, ma bulshada inteeda badan baa? haddiiba dhowr qaybood oo bulshada ka mid ahi ay halganka galaan, ma waxaa habboon intii isku dhiig ah oo abtiris wadaagtaaba inay dhinac ka dagaalanto, mase waxay guushu ka dhoweyd inay yeeshaan talis keliya oo halgankooda hogaamiya? waa jaad majaadka xidhiirka ay halgamayaashu la yeelanayaan bulsho weynta dalka ku sugan ee ay badbaadinteeda haddiiba ay u dagaalamayaan. ugu dambaysta waa maxay barnaamijka uu mucaaradku fulinaya haddiiba ay suura gasho inay xukunka qabsadaan oo kala wareegaan xukuumaddii ay dhaliilayeen? waxaa soo shaacbaxay jabhado dhowr ah oo qabiil ku dhisan, aan midda kale xiriir la lahayn, mid walibana iskeed u tartamayso ama ugu tartamayso sidii ay talada dalka kula wareegi lahayd. waxaa soo shaacbaxay jabhado aan lahayn qorshe siyaasadeed oo marka ay dagaalamayaan aan dalka oo idil u muuqane gobol qabiil kaliyii dego xamidoodu yahay, kuna tashan dadka gobolkoodu inay dhulka oo idil u taliyaan oo nin iyaga ka mid ahi kursiga maxamed siyaad ku fadhiisto. wixii qalad ku unkamaa qalad bay ku ilaadaan. burburka iyo hoogga maanta ina haystaa waa muranla qaybtiisa ugu weynay inay taliskii maxamed siyaad barre dusha ka saaran tahay, ha yeeshee waxay taariikhdu qayb kale oo aan taa ka yareen u xambaarin doontaa jabhadihii ciddiisa u halgamay. in la inkiraana waa mindi kutaag iyo maanyari aan in laga jawaabo mudnayn. maxamed siyaad barre in badan ayuu Soomaalida u sheegay inuusan kursiga madaxtooyo nabadgelyo uga degi doonin, haddii sidaas lagu qasbana la eedi doono oo maalin ay noqotaba rabbi laga durraansan doono inuu hoggaanka dalka dib ugu soo noqdo. hadal aan cid kale ka maqlay idiin soo tabin maayee dadkii uu ku oran jiray ee uu islahaa kursiga kulama rabaan ayaan ku jiray. sanadkii 1979 ayay ahayd markii iigu horreysay ee maxamed siyaad iyo anigu aan kafool u kulannay. dalabka is-aragguna isaga ayuu ka yimid, isagoo igu tuhmaayey inaanan u dhaga nuglayn sacabtumidda iyo tirinta heesihii ammaanta ahaa ee u jeclaa. waa subax hore waxaan isku dayey inaan ogaado wixii uu ka qabay mucaaradkii hubaysnaa ee isa soo taraayey iyo saraakiishii hayadka iyo ciidamada lahaa ee kooxda dalka iyo shaqadaba kaga baxsanayay. xabad sigaar intuu shitay oo kacay oo kursigii uu ku fadhiyey dhinac joogsaday ayuu farta ku fiiqay oo igu yidhi waxaa loo digiyey hamleeyahay waa kursigan xun ee aan ku fadhiyo inuu nin kale ku fadhiisto aniga oo nool. waxaanse ku ballan qaadayaa geesa dhiig leh waxaan ahayn inaan la iiga qaadin. wuxuu isagu ula jeeday yeelkoodee kollay anigu raganimo iyo geesnimo uma qaadan. waxaan u qaatay macangegnimo iyo fikrad habowsan oo aynu dhammaanteen ka qabno jagada dowladnimo, xafiis sare ha ahaato mid hoosese ha ahaatee. waxaa naga dhadhacsan ninkii meel lagu magacaabaaba inuu isagu leeyahay oo ay gar tahay si uu meeshaa u xagsado boqolaal ruuxi inay u dhimato, u dhaawacanto, u qaxdo
oo dalka oo idili uu u gubto weedha kale ee uu tan iyo bilowgii 80kii dadka u taga ku odhan jiray ee shaaca baxday waxay ahayd haddii aan soomaalidu iga dayn cadaadiska kursi ka qaadka daaqan waxaan ballan qaadayaa dal mooye inaan dad iga dambayn soomaalida warka dulucda lihi ma seegee waxaan ka yaabay sida ay weedhaasi beled iyo baadiyaba ugu fiday ee beryahaas la isaga warin jiray bal u fiirso sheekadan waa diraac kulul amase waxay ahayd hoga kariireed waxaan annaga oo kooxa harsanaynaa balbalo markii iigu dambaysay ku olli jirtay tuulada leego ee magaalada wanlaweyn u dhow waa dabayaaqadii 1987kii waxaan u baahanay caano geel oo aanu ku haraad baxno waxaan sheedda ka aragnay islaan da' weyn oo sidata dhiil yar suuqa tuuladana u wadata waanu u yeeray wixii ay wadatay oo 2 koomba noqdayna waan ka shubannay xisaabtii ay naga heshana waxay ka badnaan weyday 240 shilin weliyo soomaaliyeed oo goobta nala joogay ayaa ka tiiraanyooday dandarrada haweeneyda ka muuqata iyo yaraanta lacagta ay naga heshay su-aale ayuu weydiiyey eedo halkii caanaha ka soo qaaday waxay tidhi maande saax weyn goormaad ka soo kacday xalay muguu dayaxu soo baxay markaa saacaddu waxay ahayd 1:00 iyo barkii duhurnimo wuxuu ku keenay garan maaye wuxuu weydiiyey eedda maxamed siyaad barre ma taqaan haa duqa carrada ka talsha ma aho in yar hadday aamusnayd bay iyadii su-aal soo rogaan celisay oo waxay tidhi maandhow ma ruma maxaa eedo maxaa run ah duqu waxau yidhi dal maahee dad iga heli maa maandhow ma ruma annaga oo yaaban baan isdhuganay waxaan ka yaabnay siyaasadda sirta ah ee jaalasiyaad waxaa saxweyn geeyey ee islaanta u gudbiyey nasiibkeedaa wanaagsanaaye iyadoo dandaradeedii huwan si aan la xirin oo aan jilcow iyo axmed saleebaan u gacan gelin ayay naga dhaqaaqday oo reerkeedii oo ay caawa fii damba ku beegan tahay ula carowday muskiilo sonkor ah iyo koombo masaga ah talow maanta maxay ku sugan tahay duqii carrada ka telin jirayse ma ka raysatay mase waa u darsatay hal sano ayaa laga joogaa ama ka soo wareegay burburkii taliskii la eeday ee jaalihii soomaalida lagu ciqaabay uu hoggaanka u ahaa halkaasano maskaxdaada dib ugu soo celi labadii hadal ee aan isaga ka soo wariyeyna soo dhawayso ma daboobay qorshihii maxamed siyaad mise waa ku beenoobay su-aalahan isweydii hal sano kadib dalkii maxamed siyaad laga dhaxlay ma dhan yahay oo ma midaysan yahay dhallinyaradii waayeelkii iyo waxgaradkii kolkii isaga talada laga qaaday noolayd maanta maxaa ka nool kuwii isaga la dagaalamayse maxaa ka haray laftoodii shabaadihii dhowrka ahaa ee kursiga madaxtooyada ka tuuray ma midaysan yihiin oo intii hore ma isaga dhow yihiin mase waa sii kala fogaadeen hal sana kadib hanaankii dowladnimo iyo kala dambayntii maxaa ka haray yaase soomaaliya maanta u hadli kara hal sana kadib gobol u gudbi karaa ma jiraa talis dhexe oo laga amar qaataase ma idiin muuqdaa rajada aad ka leedahayse imisay la eg tahay hal sana kadib magaaladii xamar la odhan jiray maxay mudatay maxaa ka haray maxayse eeday oo eesatay singaane xamar weyne iyo goobihii taariikhda iyaga ka waran hal sana kadib ma caddahay qabiil keligiisii inuusan dawlad dhisi karin inta kalena inta xoog ku muuquuniyo ay isaga daacad u noqdaan hal sana kadib taliskii maxamed siyaad barre dadkii ka yaaci jiray ee dibadaha qaxootiga ka doonan jiray ma yaraadeen oo dhulkoodii ma ku soo noqdeen mase waa tuman jibaarmeen hal sana kadib qabyaaladii aan odhan jiray waxay asaas u tahay dib u dhaceenna ma ka soo raysay mase haatan lagama xishoodo oo waaba lasii xalaaleeyey ugu dambaystii hal sana kadib intee bay la eg tahay rajada aad ka qabtaa dib u soo celinta qarannimadeedni luntay iyo hanaankii dawladeed ee beri jiri jiray imisaysa qaadan kartaa in lagu soo celiyo waxaan dhegaystaha ka codsanayaa inuu mar kale su-aalahaas dib ugu noqdo meel kasta joog haddaad doonto yurub iyo america joog haddaad doonto afrika joog oo laaluushka iyo cadaadiska shisheeyaha isqaayiba mid kolkaad su-aalahaas kaga jawaabtid isku soo xooriyo sow middan soo socotaa dhammaantood koobi mayso maxamed siyaad iyo kooxdii dalka loogu dawgalay ee 20 sano inta ka badan xuquuqda ummadda ku tumanaysay miyaa dagaaladii sokeeye ku guulaystay mise waxay toodii noqotay raggii hubka gurtay ee nagu yidhi waxaan ridaynaa taliska keligii taliyaha dabadeedna waxaan dhidibada u aasaynaa bulsho aan qabyaalad ku dhisnayn oo dimuqraadi ah ilbax ah oo dadweynaha soomaalida u siman
sheekada oo idili so uma eka inantii inta ninku kufsaday hooyadeed ka dulqaaday isla markiina islaantii halkii gabadhii gashay oo markay gabadhii istiri adiguna hooyo ninka ka dulqaad islaantii ku gacan sayrtay dabadeedna ay gabadhii reebtay weedda ay soomaalidu wada taqaan oo odhanaysa hooyo show ileen iga aad kicin mayne waad iga kacsanaysa kulley anigu nin baan ahay oo maxamed siyaad iyo kooxdiisii waa cabdiraxmaan iyo maxamed sheekh lahayd baa meeshii laga qaaday oo keliya guul uma arko adiguna malaha ila mid baa tahay guul ha u arkin say ma ahee wax kaleba ha ka fakerine naftaada dib ugu noqo adigoo ah qof soomaaliyeed meel kastaba joogi isweydii waxa aad maanta ku sugan tahay nabadgelyadaada iyo noloshaadu sidee bay yihiin haddaad dalka gudihiisa joogto yaa kuu dawlad ah yaad u dacwootaa oo haddii lagu weeraro ama lagu dhaco aad u ceelsataa yaa mas-uulkaa ah haddaad dibadda joogto maxaa xurmo ah oo aad ku haysataa dawladda aad dalkeeda joogto haddii wax lagugu yeelo yaad u sheeganaysaa oo kaa wakiila qoyskiina imisaa ka dhimatay imisaa ka dhaawaca imisaa ka maqan oo aan la ogeyn meel ay ku sugan yihiin ma la socotaa in la kordhiyey waktigii u qaybnaan jiray barnaamijka baafinta ee b b c da si wax looga qabto dhambaalada baafinta qaraabada ee maalin walba soo kordhaayay barnaamijkaas marka aad dhegaysato naxdin ma ku geliyaa muxuuse ku xusuusiyaa iyada ka waran baasaboorka bugta ah ee aad sidato ka waran fiisada bugta ah ee aad lacagta ku raadinayso ka waran adiga iyo shirkadaha diyaaradaha ee aad tigidhada ka doonato kadib markii aad gacanta ku dhigto dokumentiga bugta ah ee safarka loogu baahan yahay baasaboorka soomaalida kolkaa tusto tilmaan ka bixi sida uu noqdo wejiga shaqaalaha shirkadaha adduunka ee diyaaraduhu haddiiba uu dokumentiga bugta ahi kuu shaqeeyo oo aad diyaaradaha midooda raacdo baasaboorkaaga ma adigaa haysta oo sida dadka kale jeebka gashada mase waxaa loo dhiibaa biilootaha oo markii la dego ku wareejiya saraakiisha sadcaalka ee gegida dawladaha joogta sidii aad tahay burcad la iska ilaalinaayo runta ha la gabane haddaad tahay dibad wareeg qaxooti raadis ah marna ma qoomamaysay inaad soomaali u dhalatay dhalashadaada inaad qoomamaysaa ma tahay wax laga xumaado mase waa maxaa ka macno ah waa wixii ina dileen aniga waa i dhibaye adiga maku dhibayaa warka yurub ku baahay ee ku saabsan gabadha soomaaliyeed ee ku foolatay kuna umushay waddada dhexdeeda tuulo ku taal bartamaha dalka talyaaniga telefishinka talyaaniga markaan ka fiirsaday ayaa dhulku ila wareegay waxaanan iska xaaraantinimeeyey inaan gato amaba akriyo jaraa'idka iyada iyo wiilka ay umushay ay ku sawiran yihiin maxaa yeelay qof kastoo xilkas ah oo soomaaliyeed wuxuu maanta iska dhex arki karaa duruufta ay faadimo maxamed yuusuf ku nooshahay soomaalida waan macno aqaanoo waxay isku mashquulin doonaan cidda ay faaduma tahay nuxurse kuma jiro in la ogaado maxaa yeelay giddigeen baa wada faadumo ah telefishinka iyo jaraa'idku kolkay sheekadeeda ku dheeraadeen waxaa igu maqaalo ah in dad badan oo talyaani ah ay taakulo la soo gaareen qaarna ay u ballan qaadeen inay shaqo siin doonaan kolkay umusha ka baxdo goormayse umusha ka baxaysaa waxaan u jeedaa goormay umusha dalla-aanta ka bixi doontaa oo ay ka maarmi doontaa sadaqada talyaaniga inay dhowdahay ima muuqatee adiga maxay kula tahay dalka gudihiisa dib ugu noqo waxay hor yaal joornaal talyaani ah oo la yidhahda Corriere della Sera nimanka xamar ku dagaalamaya ee dadka ku baabi'iyey nin ka soo dhaawacmay ayaa isbitaalka la geeyey maalin la weyn sida gaalkii meesha tegay uu soo sheegay weeye ninkii ayaa xabadii laga saaray gacantuna waxay ahayd gacan aan xaqabad damba lahayn markaa ayaa gaalkii wuxuu weydiiyey dhakhtarkii maxaa beri baan ka goynayaa gacanta ayuu yidhi markaasuu yidhi male hadda ka goysi wuxuu yidhi minshaartii aan ku goyn lahaa ayaa waxaa iga haysta dhakhtar kale oo saaxiibkayda oo nin kale gacanta ka soo goynayay minshaari xamar ma taalle hadda ogaada qandhadii warkii faadumo iyo midkaa xamar ka yimid igu rideen intaanan ka doorsan ayaan gatay joornaal american ah waa international herald tribune waxaan arkay masawir weyn oo laga qaaday dad madmadow waa soomaali bustayaal huwan oo aan hubo inay la-yihiin jubbadaha iyo kiboodyada culculus ee dhaxanta jiilaalka yurub laga gashado waa qaxooti 200 oo qof gaaraya oo jooga magaalada Bucharest caasimadda Romania waxay ka cabanayaan daryeel la'aan cunno xumo iyo dagaal la'aan malaha markay in badan cabashada ku soo jireen lagana hoos qaadi waayey ayay go'aansadeen inay si kale dhagax adduunka u soo jiitaan cuntadii bay ka soomeen oo waddooyinka is soo tubeen waxa qabow dhacaya toddobaad markay qarsanaayeen weeye
marka heer tribune lagu soo sawiray hadda ogow waa sawir kaliya iyo laba sadar oo ku hoos yaal laguna muujinayo cidda ay yihiin iyo cabashadooda faallo laguma darin canaana hay-adaha qaxootiga loo soo jeedinayo lama raacin waxaa dalkooda ka dhacaya oo dagaal iyo xasuuq ah inay kaalmo ku mudan yihiinna lama sheegin maalintaas kadib raadiye jaraa'id iyo telefishan toona laguma soo qaadin ma la ereen ma waxbaa loo qabtay cid ogi ma jirto ciddani ka haysaana ma muuqato geelaa lagu habaaraa ninku sheegtiyo ninku shubawaa horta ma inagu dhacda qorshihii guulguulkii iyo ku talagalkii maxamed siyaad barre iyo kooxdiisii miyaa rumoobay mise waxaa beenoobay ballanqaadyadii lagu dagaalgeliyey shacbiga soomaaliyeed ee cadaalad darrada iyo cadaadisku ku habsadeen asii inta tubtii habboonayd laga weexiyey hannaanka qabyaaladeed hubka loogu dhiibay su-aashaas iyada ah anigoo aan toos uga jawaabin ayaan sidaas kaga tegayaa maxaa yeele waxaan aaminsanahay inaynu si wada jir ah jawaabteeda u bixinay su-aalihii 10 ahaa ee aynu midmidka kaga jawaabnay dhexdooda macnaheeduse ma aha inaynu ninkii iyo xukunkiisii u barooranayno amaba aynu u bohliyoobayno waxayse tahay inaan yeelanno runta jirta geesinimo aan ku qiranno inaan yeelanno geesinimadaas oo aan helno ayaa noqon karta furaha dib u dhiska qarannimadii soomaaliyeed ee burburay haddiiba ay cilmiga ilaahay ku jirto inay maalin uun dib u dhismi doonto meel kale oo laga doonayana haba sheegi yaynu kolka sugaynaa ma waxaan dhowraynaa dunidu inay aawadeenna u ilmayso oo ay inoo soo gurmato oo qarankeenna dib inoogu soo celiso hal sana ayaa laga jooga afgambigii maxamed siyaad barre soomaaliyana waxay ku jirtay ama ku jirtaaba ururada caalamiga iyo kuwa goboleed kuwa ugu waaweyn jamciyadda quruumaha midowda afrika jaamacadda carabta ururka islaamka intaba xubin baynu ka ahayn hase ahaatee ayaa inoo soo dhaqaaqay maanta un baynu maqlaynaa jamciyadda quruumaha ayaa wax dhexdhexaadinaysa dunida maanta quwad keliya ayaa ka talisa waa america iyada iyo yurubba waxay ku hawlan yihiin sidii loo dejin lahaa loogana faa'iidaysan lahaa wixii ka haray midowda sovieti iyo yurubta bari oo ay daris yihiin cabsina ay ka qabi jireen hamigooda africa oo idili way ku yar tahay soomaaliyana iyada haba soo qaadin wax macno ah uma laha dekedihii istraatiijiga ahaa ee berbera iyo kismaayana waa la qiimo tiray hadday qiimo lahaayeen waxay raaceen gorbajof oo dhameeyey dagaalkii qaboobaa ee ilaahay in badan dunida saddexaad ku arsaaqay magacyada ahdaarood isaaq hawiye raxan weyn iyo kuwo kale ee aynu isu kala saaraa hadday adiga macno ku leeyihiin amaba ay kula wen yihiin dunida ilbaxday macno weyn iyo mid yar toona uma laha waxay dunidu u socotaa intii isku gobol ahiba inay midowdo si kor loogu soo qaado midnimo siyaasadeed iyo nolosha dhaqaale ee shucuubtooda 12 dal oo yurub ah oo aan waxba kala ahayn maanta oo baasaboor aan loo kala qaadan waxaana jira kuwo kale oo maalin walba ku baryootamaya in lagu daro dadka caynkaas u fakaraya maxay hami ah oo ay ka qabi karaan in cali mahdi xamar qabsado cabdiraxmaan tuur waqooyi qabsado amaba uu caydid ku adkaado amaba uu ku guul daraysto sidee bayse ugu garaabi karaan kumayaalka naftooda ku waayaya nin abgaala ama nin habargedida ama nin isaaqa ama nin qolo kale ahi inuu madaxweyne noqdo iyo in kale hay-adaha iyo shaksiyaadka reer galbeedka inoogu rumay waxay markii dhowr bilood la joogaba mar meel ku qoraan amaba ka hadlaan soomaalida gaajada cudurrada iyo dagaaladu salfadeen waxa lagu sadaqaysto wax qumanina taa kuma yimaadaan khilaafka ina dhex yaal iyo colaadda dheeraatay ma jiraan wax cilmi baaris ku sameeya oo galbeed jooga ma jiraan cid isku hawsha inay garato dabeecadda is-afgarawaaga ina dhex yaal waxay meel dhigteen inaynu nahay dad dambeeya oo nafta aadanaha iyo dhiigga tooniga aanay qiimo lalahayn oo wax farahooda aan ku jirin ku dagaalamaya
dad aan yarayn oo Soomaali ah dibaddana ku nool ayaa markii la weydiiyo dalka ay ka yimaadeen Soomaalinimada ka warwareega iyagoo diidaya inay ka jawaabaan su'aasha taaxigta oo ah maxaad ku dagaalamaysaan maxaad u dagaalamaysaan maxaad isku haysaan madiin baad ku kala duwan tihiin ma dalka idinku yar ma qaarkiin baa qaarka kala gumaysta su'aalaha gaalada intaadan la yaabin adiguba qalin iyo warqad qaado oo bal isku day inaad taxdo waxa ay Soomaalidu u dagaalamayso ama ku dagaalamayso oo ay u kala qoqoban tahay amaba ay u doonayso qaarkeed inay u kala go'do waxa kuu soo baxay oo sababa ah iyo waxaynu mudannay oo aynu maanta ku sugannahay ma isu dhigmaan reer hebel baa kursiga madaxtooyada qabanaya iyo maya reer hebel baa xaq u leh sabab aan ahayn ma haysaa natiijaduna waxay noqotay kabaarihii iyo guuldarrooyinkii aan horay uga soo sheekaynay maxaad kale ood iga sugaysaa waroo idili wuxuu ku idil yahay ruux walba oo Soomaaliyeed inuu aqoonsado qaranjabka inagu dhacay dabadeedna inta dan shakhsi ah iyo mid qabiil uu laabtiisa ka xalo oo halka uu joogo kaga dadaalo sidii aynu mar kale ummadaha dunida ku dhaqan ugu soo biiri lahayn warana mid noqon lahayn hawshaas inteeda badani waa hawl u taal aqoon-yahanada hantidii yarayd ee Soomaaliya wax ku bartay oo qolo kasta ha u dhasheenay laga sugaayo inay noqdaan badbaadiyayaal aynu berri xusuusanno intaasi waa hadalkii u jeeday Soomaalida dhammaan meel ay joogtaba dadka af Soomaaliga ku hadla meel kasta ha joogo dalka gudihiisa dibaddiisa halka ayaa hadalkooda uga baxaya waxaan ku xijinayaa laakiin casirada dhinaca kale aan sidii aan hore kusoo sheegay Maxamed Siyaad Barre oo ay ugu dambeysay isaga oo gala jooga waxa uu ka qabanaya meesha iyo waxa uu ka sameeyo iyo waxa loo malaynayo inuu ka yahay iyo waxa uu dhabtii ka yahay intaba casirada markaa dhinaca kale u rogto ayaa halkaa la kulmi doontaa haddana aan ku maqashiiyo ama casirada ku dhammaysa dhinacan Cabdullaahi Qarshi iyo ma runtii baynu qarxinaa heestii ahayd ee uu Soomaalida u tiriyay waa hore markii uu ka yaabay inay waxna qaranayso mindiyahana ay qarsanayso Hello.